السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدانو نهي بعض ريريا مقل وحن ما انت ميشان كحسينا اسكون حسوسينينا ابوان كالصوماليات حسن شيخ مؤمن الله ونحريستي وحوحا ابوان ذا قومية الصوماليات كوغو وناكسن سياد بل وحوغو غاتيد موادن كان روحا وحا ان وحا وعريي معلن كوا مسكحدي امدو ملاسن معلن إنه عجيب يحي أرديقو عاويا قرن معلن كينا اللوكال معلن كيسا اللوكال انتي كالكالي سنة اللوكال دوني دوا هيرماد هيان بالغو جراه جيري دوا لمهوران روح نبا مهارير مرو هبينكي مدافيه جيري دا حسن شيخ موبن وحوال إنه هل noo baneeyay waxaana hadalka mar sheegay abwaan maxamed deere haddaba marxuumku isagoo nool waxay Soomaalidu isku raacday inuu yahay abwaanka abwaanada iyo astaanta suugaanta Soomaalida taas oo uu ku mutaystay cabiraadii iyo hibadii uu lahaa fanka suugaanta wuxuu ahaa ustaadka falsafada fanka Soomaaliga abwaan xasan sheekh muumin oo aan oran karno waxa uu ahaa macallin loo soo saaray ummadda af Soomaaliga ku hadasha waxaynu ku xasuusan doonaa suugaantii dhaxalgalka ahayd ee uu inooga tagay oo inaan waligeen dhammayn doonin Allah u naxariistay abwaan xasan sheekh muumin wuxuu nasiib u yeeshay dhowr arrimood oo la xidhiidha fanka iyo doorkiisa oo aan la wadaagin haba yaraatee كو wuxuu wax ka jilay riwaayadii ugu horeysay ee dalka Soomaaliya lagu dhigo qaadi Mawlana laba wuxuu lahaa riwaayadii lagu furay tiyaatarkii weynaa ee Muqdisho National Theatre saddex wuxuu alifay riwaayadii ugu horeysay ee la qoro afar wuxuu alifay riwaayadii noqotay horyaalka riwaayadaha shan wuxuu lahaa heestii astaanta riwaayadaha Soomaalida halkan waxaad u timaadeen caawad naga helaysaan abwaanku waxaynu ku xusuusan doonaa murtidii maaweeladii maansadii mulaaxdii midhihii miidii iyo mahadhooyinkii uu macallinka inoogu ahaa sida aragtidiisii fogeyd ee cilmiga ku dhisnayd iyo weliba suugaantiisii cuslayd iyo riwaayadihii qiimaha badnaa ee uu alifay sida riwaayadihii ay ka mid ahaayeen hubsi mohalba la siistaa shabeel naagood gaari bidhaan ehlu naarka adduunka dunidu maskaxday magan u tahay Allah u naxariistay abwaan xasan sheekh muumin gurud wuxuu ku dhashay magaalada Saylac 25 Diseembar 1932 halkaas oo uu ku barbaaray kana bilaabay waxbarashadiisii aasaasiga ahayd abwaan muumin wuxuu noloshiisa inta badan ku soo qaatay Soomaaliya sidaan ciwaankan kor ku soo xusnayba qormadani waa taariikh kooban oo ka wada turjumi karin noloshiisii haddaba sanadkii 1986 iyo 1976 wuxuu xal abuur iyo daadiye ka noqday radio Muqdisho wuxuu sameyn jiray barnaamijyadii caanka ahaa ee hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta abwaan xasan sheekh muumin wuxuu maareeyay guud ka noqday golaha murtida iyo madadaalada Hargeysa
abwaan muumin waxa uu dabayaaqadii toddobaataniyadii uu suugaan baaris ugu tegay maxadkii Institute Superior ee ku yaalay Djibouti oo markaa ahaa hoos iman jirtay gumaysigii Faransiiska. abwaan xasan sheekh muumin waxa uu ka mid ahaa macallimiintii fanka dhididabada u taagay. waxa uu ahaa halabuur, fanaan, jilaa, gabaya, ganacsade iyo macallin aad loogu ixtiraamo bulshada dhexdeeda. sida taariikhdu xustay, abwaan muumin wuxuu fanka bilaabay isagoo yar. waqtigii gobonnimo doonka heesihii ugu horreeyey uu kaga qayb galay oo ahaa bilowgii iyo baraarujintii gobonnimada waxay ahaayeen kuwo af carabi iyo af soomaali isugu jira. heeso wadani ah waxaana ka mid ahaa yaa ayuha somaalu saluu calaa nabi wa aalihi wa saxbihi yaa taabica alwadani. nin islaanoo aqalkuu lahaa aayar loogu soo galayoo iiga bax yiri baan ahoo aflagaada loo rogay. abwaan xasan muumin wuxuu jilaa ka noqday riwaayaddii ugu horreysay ee laga dhigay gobolladii waqooyiga ee Soomaaliya, Somaliland iyo guud ahaanba Soomaaliya. riwaayaddaas oo la oran jiray qaadi mawlaana waxaana lagu dhigay af carabi. riwaayadda waxaa sameeyey abwaan bulaale borama. riwaayaddii qaadi mawlaani waxaa laga dhigay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco sanadihii 40-meeyadii. abwaan xasan sheekh muumin wuxuu lahaa suugaan aad u tiro badan iyo weliba sheekooyin xiiso leh. annagu halkan kuma soo koobi karno haddii aan kun maalmood qalinka kor u hayno, laakiin inta aan ka xasuusanno ayuun baan halkan ku soo bandhigi doonaa. heestii ugu horreysay ee ugu cajiibka badnayd ayaa iyaduna waxaa ka mid ahayd aqoon la'aani waa iftiin la'aan, waa aqal iyo ilays la'aan. ogaada dugsiyada ogaada oo aada walaalayaal oo aada. waa oomanaa iyo abaareh, omos iyo oon iyo biyo la'aaneh. ogaada dugsiyada ogaada oo aada walaalayaal oo aada. indhaha aan kala qaadne, ifka aan ugu ilbaxsanaane. ogaada dugsiyada ogaada oo aada walaalayaal oo aada. heestani waxaa alifay xasan sheekh muumin 1961. waxa uu ku luqayn jiray allaha u naxariistee hobolkii weynaa ee cabdilaahi qorshe. wakhtigu waa hilaac ordayee, aad u dheeho intaad yartaho. erayadaad barataad akhridaa, anfaca abidkaayo. ka adkow dugsigaaga ka adkow, deriskaaga ka adkow. waa murtidii, waa midhihii, waa mulaaxdii iyo maansadii allaha u naxariistee xasan sheekh muumin. waana hees ardayda ku baraarujinaysa tacliinta iyo dadaalka. waxaanahay waadiga dugsiyada, waxaanahay waanada macallinka. waagii baryaba ubax laga waraabsho. waxaan ku warwaraynaa waddankiina wax u barta oo xambaara waajibkiisa. waxsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno, weecan mayno. guul wacan cadow ka waabto, nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha ku waaro waddankeennu waa wadnihii jirkeenna, waraabinaya dhiigo waan ku wardiyaynaa. heestan waxaa midhaheeda curiyey xasan sheekh muumin 1970. wuxuuna ku luqayn jiray allaha u naxariistee abwaan maxamed mooge. murtadeennii qoostee qaawanayd quruxsan ah, sumadda loo qalqaliyee lagu qoray qumar ah. maantuu qabweyniyo qosolku ii xalaal yahoo, maanku i qaboobayaa qalinkaaga ii dhiib. erayada aan kuu qoro
qumaati ugu bogo fartii qalaad hamoodin carabku qaldi maayee sidii caanaha qurquri heestan isna waxaa qoray allaha u naxariistee xasan sheekh muumin waxaana la qoray 1972 xilligii lagu dhawaaqay qoraalka afka hooyo madal hadweyno ceel maaxanaye macallinkeena allowkaal maskaxda iyo maankiyo waa ka muruq leyle macallinkeena allowkaal dunidoo madow oo mugdi iyo cabsi leh oo mici ku dhiigliyo masdilaa ay joogaan waa ka miranka nuuree miinan janno allowge midho janno allowsii macallinkeena allowkaal heestan waxaa isna curiyey abwaan xasan sheekh muumin waa hees ardayda dugsiyada qur-aanka dhigtaa ay qaadi jireen oo caanka ah dhammaan dhulka soomaalidu degto marxab yaa ramadaan waayaxyaa marxab bika yaa ramadaan bishan magaceedu bilaha u mudnaa macbuudku ammaanay yaa ramadaan marxab yaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii loo misoobay islaamku midoobay yaa ramadaan marxab yaa ramadaan heestani waxay ka mid tahay heesaha la qaado wakhtiga soonka ah aad bay muslimiinta soomani ugu raaxaystaan marka fanaaniintu isugu jiibanayaan taariikhdan kooban ee xasan sheekh allaha u naxariistay waxaanu ka soo xignay mudane jawhar cabdisamed qanin ururka gurmad waxaana ku mahadsantihiin isla abwaanka sameeyey Bye.